gabadha waxay tiri muddo 4 sano ah ayaa nin wada socon marka 4 sano waxay tiri lacagan ka qaadan jiray waxaan lacagta uga qaadan jiray inuu guursanayo saasuu maragtaa iskula socon jirnay 4 sano marka lacaga socotay oo gabadha ku socotay ka bacdi gabadhii ballankii way ka baxday waxay sheegtay nin kale in markaa go'aan ay la qaadatay inay guursato lacagtaas markaa wuxuu ku soo dallacay ninkii ilaa lacag $7,000 gaaraysa marka lacagtaas ma loo celinaa oo waajib miyaa ninkii in dib loogu celiyo mise lacagtaasi sharci uma laha ninkaasi in dib loogu celiyo maadaama aan laga xoogin oo khasab aan looga qaadanin laakiin si farsamo ah ninkii lacagtii looga qaatay masaladaas kutubtu way ka hadlaan weliba casharkeenna xaashiyadiisa imaam albaajuuri raximah allahu tacaala masaladaa wuu ka hadlayey oo wuxuu uga hadlayey meesha waxaad fiirisaan walaa yajuusu an yusarixa bikhidbati muctada casharkii shalay meesha noogu jirta walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbati muctada gabadh ciddo tirsanaysa ee shukaansigeeda iyo doonisteeda inuu caddeeyo ma bannaano halkaasuu marka sheekhu wuxuu ka qabtay wa mithlu tasriixi bikhidbati almuctadati haweenay ciddo ku jirta in la shukaansado oo loo caddeeyo inaad rabto waxaa la mida oo iyaduna xaaraam ah annafaqatu fii zaman alcidda haweenay ciddo ku jirta in la nafaqeeyo la biilo iyadoo qasadka aad ka leedahay ay tahay lacagta aad ku biilayso inaad guursato markay ciddadu u dhammaato haddaad iskaga sadaqaysanayso dhib ma laha gabadhana waa gabarh miskiina ciddo ku jirta aan iska sadaqaysto waa ajiraadba ka heli iyo khayr iyo barakaat laakiin gabarh ciddo ku jirtaad lacag u diriyood biili ulajeeddadaadna waxay tahay markay ciddada ka baxdo inaad guursato lacagtaasi marka waa sarbeeb camal waxay ka dhigan tahay waan ku rabaa ogaaw maadaama aan lacag kuu soo dirdirsanayo nin kale igama aadi kartid lacagtaasi marka waa xaaraan gabarh ciddo ku jirta lacag loo dirayo ulajeeddadu ay tahay ciddadu markay dhammaato inuu guursanayo waa xaaraan annafaqatu fii zaman alcidda kamaa yaqacu kaiiran fahuwa xaraam sida inta badan ba dhacduu yidhi imaamulbaajiri waa xaaraan walow anfaqa cala almakhduubati walow lam yatasawajha haddii gabadhii uu doonayey uu nafaqeeyo lacag uu siiyo walam yatasawajha mana guursan rajaca bimaa anfaqahu wixii qarasha ku bixiyo dhan waa kala laabana saa xaq u leh yani qarashkan ulajeeddada ninkan uu bixinayo waxay ahayd inuu ku guursado hadday gabadhii ballanka ka baxdo ama yacni ay yimaadaan xaalado kale qarashka ninka waa loo celinaya xataa bilmilx cusbo xataa hadday ahayd cusbadii yar waa la celinaya walow kaana tarku minhu ow bimowtiha isagaa ka tegey ama iyadiyaa geeriyootay ama isagiyaa ka tegey ama ballankii toos uga baxday qarashkii oo dhan waa loo celinaya qasadka lacagta lagu bixinaya hadday ahayd guur wa maxallu rujuucihi marka la leeyahay wuu laabanaho qarashkii ayuu dib ugu soo laaban xayثu adlaqa hadduu iska idlaaqay oo lacagta uu iska siinayay ow qasada alhadiyata liajli nikaax ama wuxuu u qasday hadiyadan inuu gabadha ku guursado uu ula qasday fain qasada alhadiyata laa liajli الnikaaxi falaa rujuuca haddii laakiin uu ula qasday inuu hadiyo gabadhan iska siiyo oo isaga sadaqaysto wax guurana uusan ka rabin qarashkaasi kuma laabanayo dib uguma laabanayo marka gabadhan su-aasheeda waxaa weeye lacagta intaasoo sano 4 sano ha noqoto ama 5 sano lacagta ninku hadduu ku bixinayay qasadka guurka inuu guursado oo gabadhii ay uga baxday oo nin kale ama wiil kale ay xiriir la samayso ballanka ay sidaa uga baxday qarashkaas waa celis marka intuu la ekaa iyagay u dhaxaysaa hadduu 7,000 ahaa annaga ma dhahayno 7,000 waa run waa ahaa iyagaa ugu qarashku intuu ahaa laakiin masalada waxaan ka qabanaynaa qarashku waa celis ya wiil
وإسلامي دواي مرة والبابا هدي يعني بلن كي قبضوا أي كبحلو أما والدك هكو تشكيليو أما أيدو هكو آنستو مربا هدي بلن كي لقبحو لعقتا نيدا اللوسينيي يقصدك لقالهانا وها إنو قورسدو وقبضي بلن كي كبحلي أما والدك وكلت لي يوري بلن كي كبح لكن قورسو ودا سو واجب ku ah ninka lacagtii ay dib ugu celiso laano lacagtu qasad ay leeyahay marka sidaas way masaladaas